السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا أصحابتنا جنال كينا روان جنال روان iyo روان waxaan idlaanay mar labaad soo dhawaada asxaabteeda qaaliga meel kastoo joogtaan adduunka. waxaan idin wadnaa caawa barnaamijkan looguma talagelin waa challenge-gaasna waxaan rabaa in aan kaga naxiyo روان iyada oo aan su'aalo weydiin doono iyadana su'aashaas ay barnaamijka kala qabsan doontaa oo iyana su'aalaheeda meesha kala dhex bixi doontaa. sheekadii ma hayno wadni caawa may sheeko kale waaye ma aha sheekadii reactionka laga sameynayay laakiin sheekadan waxaa waaye waxaan rabaa in aan wax kala dooran siiyo dadka Soomaaliyeed ee celebrity-ga ah ama fanaaniinta ah ama youtuberska ah qaar ka mid ah waxaan mar walba soo qabanayaa laba qofood maadaama hadda sirta iga kashifantay iyadana waxaan rajeynayaa inta hadalka uu socdo in ay kasii fakarto in maaragtay iyana sii diyaarsato. Okay, su-aasha ugu horeysa روان aan weydiinaa waxay tahay waxay kala dooranaysaa laba fanaan iyadoo markaas lix jeceli ama ehelnimo ama waxaas aan u fiirinaynin. labada fanaan aan soo qabanayo waa laba fanaan oo Soomaali dhexdooda caan ka ah oo dadkana inta badan waxyaabo fara badan oo qiso dhex martay ayaa jirta. labadaas fanaan waxaa waaye fanaanada weyn Khadra Silimoon iyo fanaanada kale weyn Hodan Cabdiraxmaan. labadaas mid inaad doorataa la rabaa oo u codeyso. labadaan isayn fadhiga dhig weyn may adiga labadaas waa ishaya labadaas markaan eego horta Hodan Cabdiraxmaan aad baan u daawan jiray berigii hore maxamed daawada heesaha Khadra Silimoon sidoo kale waan taageeraa laakiin labada waxaan taageera aad u weyn u hayaa waxa weeyaan Hodan Cabdiraxmaan. Khadrana waxaan leeyahay salaamay. Okay, taas waxaa waaye su-aashii aniga aan weydiinay hadda ayadaan marka su-aal siinaya aniga wad gaadaan laban hadda imika waxaan ku weydiinayaa su-aasha ku weydiinaya waxa weeyaan laba youtuber labadaas wax la kala yiraahdaa CK oo dhawaan qalgalay waxaan leenahay waan hambalyeynaa reerkiis ku waaro wad khayr qaba kala hela iyo Idris Cabdi. labadu waa laba youtuber oo caana labadaas mid dooro. aniga waxaan ku leeyahay horta Idris le aadan u taageeraa oo reactionadiisa aadan u daawadaa oo waxa waaye nin aan dhowr mar daawaday ayaamihii maamuliyeen ay soo bixaysay laakiin waxaa jira CK aniga wax ma qarqarinayo CK aniga doortay waxaa dhacay CK ciyaal balad waaye ciyaalka xaafadda waaye qabyaaladna miga aha laakiin CK aan qaata aniga may taas waana salaamaya saaxiibkay Idris ciyaal xamar boogta Idris inta miska xiray 3 sano ku yaal may taas isaga taala dadkiisa ka saca maxaa kale ku weydiiyaa adiga waa markaa gidde. Okay, aniga waxaan ku su'aalaa marka laba youtuber oo dumar ah iyadoo reer aad fiirinaynin labadaba waxaa waa inta badan waxay caawiyaan dadka oo waxay sameeyaan barnaamijyo ay dadku u raadinayaan dadkooda amaba ay ku kaalmeynayaan. labadaas youtuber waxaa waaye walaasheen qaalid ah youtuberada inta badan dadka caawisa amaalkeysi iyo youtuberada kale ee caanka ah Hana Abuukar. labadaas midna doorataa laga rabaa. Hana Abuukar iyo amaalkeysi صراحة labadu waa laba dumar oo Soomaaliyeed oo dadkan aad u caawiya laakiin anigu صراحة saxaqeen muna ahaan waxaan aad iyo aad u daawadaa oo aad u taageeraa amaalkeysi. waana salaamaya waxaan leeyahay Hana Abuukarna adiga laftii waan ku salaamay xabiibti qalbi. may qabyaalad way taas maaha qofku da wuxuu hobbigiis wuxuu ka helaa weeyaan anigu waan ka helaa aad iyo aad baan uga helaa amaalkeysi waana taageeraa oo gabadh aad u qiimo badan hadii goor waxa jira kelmado aad iyo aad aan ugu xasuusto oo aad igu qaaliya aad iyo aad baan u salaamaya. Hana Abuukar laftigeedana aad baan u salaamay anagana waa salaameynaa walaasheen amaalkeysi iyo walaasheen kale Hana Abuukar. haddaba su-aashaada la gaaray ayadan ku weydiinaya waxaan doonayaa inaad kala doorato markana laba qof oo aad caan u ah Soomaalida dhexdeeda caanka ah waxa weeyaan Achakis iyo waxa weeyaan Babajay.
labadaas mid dooro. horta baabajey waa maqlay laakiin aniga weligay ma daawanin mana arkin. waa majaajilaysta isaga laftiisa. okay waa soo dhaweynaa waa salaamaya baabajey salaamullah. laakiin aja macalinka weyn maxamed jaceylo aabihiis isaga waxaa waaye celebrity ma dhacaayo adduunka waxaa la dhahay algasiir basiir ee dhan carabta nin gaaban weligaa waa laga cabsadaa. maxaa dhacay Maradona waa gaaban yahay, Messi waa gaaban yahay, Ajaxna waa gaaban yahay. aja soo dhawo aan ku leeyahay saaxiibkay walaalkay tolkan taageerina. labadaba aad baan u salaameynaa. waa laba qof oo Soomaalida dhexdeeda aad caan uga ah. waxaan ku weydiinaa marka gabar habarartii oo aad qaali ugu ah oo social media aan isku baranay Eglan Saalax iyo Bishaara Bando labadaas qofood aa la rabaa inaa mid ku go'do. labadooda ha wallahi labadu waa laba hablood oo qaaliya, labaduba waa laba wariye saaytay haddana waa laba aad iyo aad hablood oo saaxiib u ah. ma fahanti ma kala dhacaan. laakiin anigu labada waxaan aad iyo aad u taageeraa waxa weeyaan Bishaara Bande. okay adiga marka su-aashaada la gaaray haye markan aniga waa su-aashaydii waxaan doonaya inaad kala doorato laba youtuber oo caan ah oo Soomaalida dhexdeeda caan ku ah. waxa weeyaan Asad Xaajiyo oo jooga Malaysia. halkan aad iyo aad baan uga salaamaya waan taageeraa. maalin dhowtay wuxuu gaadhay 400k. aad iyo aad baan uga hambalyeynaya Asad Xaajiyo iyo Xasan Toob oo jooga Xamar. labadaas mid dooro. horta saaxiibkii Xasan Toob waa ninaan mar dhow isbaranay oo saaxiibanahay. Asad Xaajiyo aqoon saas u weyn uma lihi, laakiin Asad Xaajiyo waxaana kulmiyay laba mid. Asad Xaajiyo waxaana kulmiso inaan hal deegaan aniga asaga kasoo wada jeedno, hal deegaan ku wada dhalanay oo reer marka aan wada nahay. qabyaalad ma ah. teeda kale midda labaad Asad waxyaabaha aniga aan ku taageero ama waqtiga aan bartay waxyaabaha aan ku taageerayo waxay ahayd ama aan ku bartay Asad in dhibaato loo geystay oo ninkii dhibta u geystayna abaalkiisa la marsiiyey. aniga marka waxaan leeyahay Asadaan waxaa waaye like saaraya. Asad Xaajiyo soo dhawo. adigana waxaa waaye saaxiibkaya tahay waa anagii wada sheekeysanay. marka Asad waxaan leeyahay 100% aan siinayaa. anuun wax la dhaha jiro reer marka haddaan nahay tulixey waaye ma fahanti. salaamaya marka waxaan idin leeyahay habeenkaa idin wacnaado. wax hare ma laha umaleyna wax kaloo dadkaas ka caansan ma laha aan soo sheegno. youtuberska waa soo dhammaadeen. fanaaniinta intii markaas aan ka seenay waa iska soo gabagaboobin. horta aniga weriye oo qof dumar ah inta badan ma aqaan mediaha oo Soomaalida inta badan. laakiin haddii aan ku weydiiyo weriyaasha oo ragga ah waxaan ku weydiinaa ninkan wariyaha ah Cabdisalaan Hareeri iyo Cabdiqaadir Nadaara. labadaas wariye yaa u codayn lahayd adiga? wallahi labadu waa laba wariyo weyn oo BBC kasoo wada shaqeyso maaha. Cabdiqaadir Nadaara wuxuu ka shaqeeyay Kalson TV. Kalson TV ka shaqeeyay. hadda marka Cabdisalaan Hareeri ilaa BBC da maqli jiray. ma taas iyada laftirkeeda tolnimo waaye. ma ahan Cabdisalaan Hareeri wariyaal badan oo Aamin Muuse Baheliye ka mid tahay. ciyaalnimadan BBC ka maqli jirnay 9 habeenimo ilaa 5 galabnimo. aamin oo ku salaamaya maadaama aan iri waa iga kala maqan yihiin wariyaasha Soomaaliyeed. aamin adilo number 1 waxaa tahay Muuse Baheliye gabadha kaliya taariikh ka qormaysa qof weyn oo waxaa tahay caan ah. aadan ku salaamaya xishmad weyn oo ku haya. sidoo kale aad baan u salaamaya Aamin Muuse Baheliye waa qof aad iyo aad u qaaliya. soo dee adiga haray waxaan doonayaa inaad kala doorato Cagta Xaaji
iyo cabdi xaajiye inaad kala doorataan doonayaa. cabdixafiid ma soo daa cabdi xaafid adaaba keenay. okay horta cabdixafiid weli waxa waaye saaxiibkay ah hay oo ayaamihii 2015kii dhowr mar aan wada xiriirnay. waa wariye weyn, labadaas qofood laba position ama laba maqaam weyn ay leeyihiin. marka waxaan jeclaan lahaa in labadaba aan isku qaato. waa midda cagta xaajina waa jugta culus oo nin waxa waaye oday ah oo maaragtay marka compare haddii la dhaho labadaas qofood mar isku compare gareyn karo. laakiin haddii ay qasab noqoto aniga waxaan dooranayaa saaxiibkii cabdixaafid. cabdixaafid baa dooratay. cagta xaajina waan salaaminaa, waa wariye weyn dhammaantood baan salaaminaa. okay waxaan ku weydiinayaa marka adigana shiino coley iyo daari calisow inaan kala doortaa yaa kala dooran lehed labadooda. horta labada waa laba qof oo social media aad iyo aad caan uga ah, laakiin shiino coley iyo daahir calisow hadday noqoto waxaan dooranayaa daahir calisow. maadaama in adeerkee oo ciyaal xamar yahay daahir. shiino coleyna aad iyo aad baan salaameynaa, waa nin aad u taalanti leh oo maasha allah aad baan u daawadaa ugu xidhanahay, isagana aad baan u salaamay. dhammaantood baa salaameynaa. haye adaa hadhay waxaad kala dooranaysaa gooyan aniga waxaad doonaya inaad kala doorato cabdiqaadir soolo iyo cabdinaasir soolo. cabdinaasir soolo hadda isaga aad mataabacaa anigu. cabdinaasir soolo iyo inaad kala doorato qaadiid ninkii qaadiid abukar cawaale qaadiid iyo cabdinaasir soolo. horta waxa waaye ma ku dhahayo waa dambowday oo mana rabo inaan qof ka xanaajiyo labadooda. qaadiid waa nin weyn oo ummadda soomaaliyeed maaragtay guubaab weyn ku haayo barnaamijka qaadka iyo waxaas sida looga hortegi lahaa, ummadda looga badbaadin lahaa, wacyigelintaasu haayaa. qaadiid waa ku salaamaya, asxaabaan nahay, dhowr maraa xiriirnay 2015 ilaa 16 oo contactaan leenahay. laakiin macalinka weyn saaxiibkay cabdinaasir ismaaciil soolo waxaa waaye waxaan isnaqaana muddo 12 sano ah. waa nin garabkayga ah, waa nin walaalkay ah, waa nin igu qaali, waa ninaan saaxiibanahay oo waqti walba xiriirno. ma ku dooranin, laakiin soolo waa nin weyn oo engineer ah oo academic ah. adduunka waxa qofka muxuu dunida kusoo biiriyay haddii la dhahaayo soolo haddii waqtigiisa uu 1000 sano gaaro oo adduunkan ka tago ardayda waxbaray aa weli joogto. marka soolo waa nin taariikh badan leh, waa nin adduunka wax kusoo kordhiyey. saaxiibkii cabdinaasir ismaaciil aadan kuu salaamaya, laayigan kuu saaray. walaalkii abukar cawaalena aadan u salaamaya. dhammaantiin waa idin jecelnahay, waxaa naga galay kaftanka iyo jaalanjiga. dhammaantiin waa idin jecelnahay. bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda magac iyo sharaf ku leh. marka inta la qaatay inta laga tagayba anaga markasta qaali baan ugu tihiin, laakiin kaftanka uun ba halkaas maray. hadda su'aal adagaan weydiinayaa umrawaan oo ah corona covid-19 haddii aad joogi lahayd magaalada muqdisho maalinka sabtida banaanbaxaa jiro, haddii oo banaanbaxa aad ku tala jirtay oo lagu dhaho covid-19 aa jiro ha bixin, corona maa dooran lahayd mise banaanbaxaa dooran lahayd? banaanbaxa dooran lahaa. sankara waan xidhan lahaa, farahana waan xidhan lahaa, oo diyaar garoobi lahaa, waana banaan bixi lahaa. taas waa mucaaradnimo waaye. dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dadaala oo dalkan adinka dowladnimo wax ka fiican ma jirto. saamileyda siyaasadda haddii aan maqasheen adinka ah, ma jiro qof keligii saamiley siyaasadeed ah ama dowladda wax ka rabo. dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa saamiley siyaasadeed. anigaa saamiley siyaasadeed ah, umrawaan saamiley siyaasadeed, dadku dhan waa saamiley siyaasadeed. caqliga yaalan ka gedin. xanuunkan jirana ha la iska ilaaliyo oo ha lagu dadaalo nadaafadda iyo in
qof walba uu sanka xirto iyo in dadka maaragtay laga wacyigeliyo insha Allah goobaha baana dadka faraha badan ay soo imanin maadaama aniga aan ahay odayga janaalka su-aasha ugu dambeyso ee janaalka aan kusoo xireen aniga weydiinayo Rawaan su-aashaan weydiinayo waxay tahay qabyaaladda iyo Soomaalinimada kee dooran lahayd wallahi qabyaaladii Soomaalinimada haday noqoto Soomaalinimada dooran lahayn Soomaalida maanta halka waxa dhigay waxa weeyaan qabyaalad qof walba oo Soomaali isaas oo dhaha qabyaalad waa hadii baash runta imaatana qabyaalad ku dhaqmayaan hadda ma adarag fanaaniinta kulli waxa loo kala jibay qabiil qof kastaba qabiilkiisu taageeray marka maxaa u dhahay marka adiga waxaan u leeyahay dadkii dhanba qabyaaladii way wada taageeray dadka been u sheegay marka dadka uma sheegay dadka qabyaaladii wada taageeraya soo maaha haddana ninka qabyaaladkan taageeraya iyaga ku biiray laakiin haddana Soomaaliniman taageeraya waxa dhici karta balin badan inay ka soo noqoto maanta heerkay taagan tahay waxna waa kaftan waxna waa run moogtahay markastana qabyaalada waxa ka weyn jinsiyadda barnaamijkeena intaas aan kusoo koobaynaa dhammaan intii aan kusoo qaadan barnaamijka mid aan mid kale ka jecelnahay ma jiro laakiin Hajakis iyo Cabdinasir Zola aniga aad aan u jeclahay asxaab dhawaan nahay aadna idin salaamaya waa anagoo idin leh kusoo dhawaada mar labaad janaalkeena aad ay ugu mahadsantihiin heerka janaalka aad gaarsiiseen ha ilowina waxaasoo dhan ee idin sheegtay Rawaan aadna u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh